dabayaaqadii hore toddobaadkaynu soo dhaafnay ay ahayd markii magaalada hargeysa ay koox dhalinyaro oo isugu jirtay ajnabi iyo kuwo ka soo jeeda bandhigay ku xayeysiinayeen xidhashada dharka oo iyadu ahayd markii ugu horreysay ee lagu soo bandhigo deegaanada kala duwan ay Soomaalidu degto gaar ahaan Somaliland iyadoona arrintaasi siyaabo kala duwan lagaga hadlayay baraha ay ku kulmaan bulshada ee loo yaqaan social media yaxye maxamed xaaji geedho isagu ka mid ah dhalinyaradii kulankaasi soo qaban qaabisay oo qaar ka mid ah warbaahinta magaalada hargeysa kula hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada ay ka lahaayeen bandhigaasi isagu muruka weyn dhaliyay waxaan ahay dhalinyaradii barnaamijka qabatay fashion showga run ahaantiina waxaan ugu talagalnay inaanu ku caawino walaalahayga abaaruhu ku dhaceen tabaalaysan run ahaantii saan wada ogsoonahay social media la isla wada dhex yaacayay annagoo marka horeba soo boosgareynay oo ku soo qornay intuuna showga bilaabinba ka hor week ka hor ku soo qornay danta aanu ka leenahay ama waxa uu barnaamijkaygu u socdo oo ah inaanu walaalahayga tabaalaysan ku caawino marka waxaan u sheegayaa dadweynaha Somaliland iyo Soomaalida kaleba in barnaamijkayguna wax kale u socon ama dhaqan bees ama wax kale u socon waxaan doonaynay inaan dumarka xagga dama dhignaan doonaynay laakiin qolada hotelka ayri dumarka xagga lama dhigi kara xaggan hore soo dhiga kin yaxye waxay dadka inta badan ay leeyihiin social media wareegisa in dhaqankan oo ku cusub Soomaaliya guud ahaan Soomaalida lagu soo bandhigay qaab ka soo horjeeda diinta Islaamka oo dharkii ay dhalinyaradu meesha ku soo bandhigay qaar ku dhagsanaayeen qaar feedha qaawanayeen oo dhaqankii Soomaalida xitaa asalka aan ahayn arrintaas waxa kale wallahi qaawani marka la sheego qaawanida diiniyan weyn wada garanaynaa waxa weeyaan xundurta iyo jilbaha xundurtiisna qofka inanka may banaanayn oo way qarsoonayd oo waxa ku qarsoonaa go'i kale haddaynu dib u raacno maxaa la yiraahdaa dhaqankeena ama awooyaasheen maxaa la yiraahdaa qarniyo ka hor inaa maba haysan ma garanay xidhaan soo ma garanaysid that's why anaguna aan u sameynay inaanu maxaa la yiraahdaa dhaqankii dib u soo celino wixii soo cusboonaysiino marka dhaqaalihii aad ka soo saarteen goobtaasi bandhig faneedka soo bandhigteen ama bandhigaas soo bandhigteen xilmad guddiga abaaraha ku wareejiyay dhaqaaliyaad ka soo rusay wallahi waxaan doonaynaa inaanu dib u xisaabino cause waxyaabo badan baa jira oo nagaga baxay meesha wixii ku baxay marka laga gooyo inta kale oo dhan waxaan doonaynaa inaanu ku caawino guddida abaaraha ku wareejino dhinaca kalena wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo isaguna qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in wax kasta ka soo horjeeda dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo diinta Islaamkaba aanay marnaba aanay ogolaanayn in gudaha dalka lagu sameeyo isaguna wasiirku dhalinyarada bandhigaasi sameysay u soo jeediyay waaniya dardaaran arrimaha runtii marka qaar dadku ka cabanayaan ama media iskaga jirta ama maxaan social media ku badan oo dhaqan xumada dhalinyaradu maanta ay meelaha qaarkood ku sameynayaan iyada lafteeda waxa loo eegayo sharciga ma loo eegayo shariicadeenna sharciga ayuunba loo eegaya oo marba lagu toosinaya waxaan ummad manhajkeedii iyo dastuurkeedii iyo dhaqankeedii iyo shuruucdeedu ku wada asaasan tahay inay ilaaliso shariicada iyo diinta ilaaliso ayaynu haysanaa alxamdulillaah rabbil caalamiin sidaa darteed dhaqan kasta oo nagu cusub oo yimaada waxa loo eegayaa uun kitaabka Alle iyo sunnaha Nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu u jiro iyo maxaan ku halku ka taagan yahay mesela waxa la soo wadiinayaa bandhig baa la sameeyay bandhig dhareed baa la sameeyay waxay ku xidhan tahay shariicadeena ma waafaqsan yahay ma waafaqsan mesela haddaad go'shaala iyo cumaamad iyo macawistaadii iyo dharkii salaadiintu qaadan jirata waxa ay siinaya sharci ku diidaya ma jiro oo maxaad waxa ay lagu oran maayo haddii aad dharkan caadiyan xidhanno ee aynu ku xaragoono ee aynu munaasabadaha ku tagno amba suur ha noqdo ama khamiis ha noqdo ama dharkan caadiga dadku oo dhimka ka midaysan yihiin ha noqdo hadduu qofku israado ka yani u sameeyo maxaan ku rahday bandhig oo u sameeyo xayeysiisna taas waxba kuma jabna laakiin markuu shuruudaha diinta u dhigta dharkeenna oo khilaafo ayuu noqonaya xaraan ayuu noqonaya mesela shariicadeena waxay u dhigtay dharka ee la xidhanayo shuruud awnaada ma qurux badna inuu dharka wada qaato dharka wada dhamaystira ayaa wanaagsan laakiin daruuradu markay keento waxa wayna qarsoon xudunta wixii ka hooseeya ee jilbka ka sareeya inta kalena aad ku dadaashaan qarso waxa weeye kow inaanu ahan dhar jilkaaga muujinaya oo sawiraya oo kugu dhegsan
oo surwaal kan la yidhahdo marka iga siiba oo kaleeyo ee bacda lagu siibay iyo waxaa la midka ah waa aan noqonin libaas haddana ishu ka dhex baxayso jidhkaaga cadaankiisii iyo madowgiisii iyo cawradiisii laga arkayo oo khafiifna inaan noqonin soo saddex maan hayno ka afraad waxa weyn an laa yashbaha libaas alkufaar inaanu dharku u ekaanin dharkii ay xidhaan dadka aan muslimiinta ahayn ee gaalada ah dharkaas isku dhar ma nihiin isku nidaam ma nihiin marka in dharkaa loo ekaadana waa shardiga afraad ee loo xidhayo bandhiga lagu xayeysiinayay xidhashada dharka ee magaalada hargeysa lagu soo bandhigay ayaa waxa uu noqonayaa markii ugu horreysay ee bandhig noocan oo kalea lagu soo bandhigo deegaanada kala duwan ee soomaalida gaar ahaana somalilan iyadoona arrintan ay hadalhayn weyn ay ka dhalisay bulshada kala duwan cabdiraxmaan abdilaahi fantastic saab t v hargeysa